السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي سو دhowaada walaalkan wartaadna halkan ka dawsan wajna halkan reer channel hadaa ku xisbtiina ka subscribe saar muuqaalka la gareey share gareey la wadaag asxaabtada fikirkaaga iyo aragtidaada isku teen xaq hoose nuugu reebto si kasta ay ahaato waxaan rabaa in ka wada hadalno mowduuc ku saabsan rasmi rays iyo idil barkad iyo xaaladii farxaan yare halkay ku dambeysay soo meedan garan rasmi rays hore waxay balan ugu qaaday inay markii Nairobi tagto wax walba ay yaani sheegi doonto sida wax u dhacaan hadaba waxay u hadla weeday dadku is weydiinayaan taana waxa rabaa inuu gadaal yaani aynu kaga hadalno sidoo kale ka idil barkad iyo farxaan yare maxaa ka jira taalifteedina way istul taagi doona qodobo dhowr oo caawa idinka hayo soo dhawaada asxaabtayday soo qaata gambadhadina ama kuraasidiina halkan agteeda soo fadhiista koob shaaha muuqaalkan ku caba oo ku dul dhameesta adiga oo yaani muuqaalkan dhameystirana please waxaan ku leeyahay fikirkaaga iyo aragtidaada ama dhaliil ugu saabsan ama ku saabsan dadkaasi aan markaasi ka hadlayo يعني هنلا وداين markaad muuqaalka dhameysto marka aragtidaadu aad iyo aad muhiim ugu tahay laakiin adigu labada mir ama saddex mir ugu horeeyay daawaday muuqaalkan oo 7 mir ama 8 mir ama 9 mir ama 10 mir yahay yani waxa la oran karaa qofkaasi meel dhow ay wax ka eegay hadaba idil barkad ayaa hadashay una jawaabtay dadka youtuberska iyadoo cadaysay wax walba farxaan yare iyo ka dhaxeeya markaasi iyada soo meedan fahmay postiyada halkan idinka muuqda oo ah postiyo ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Snapchat-ka ayaa markaasi waxayna yaani sheegaysaa sida idinku aragtaan in ay dadka markaasi youtuberska iyada iyo farxaan yare isku guuriyay isku dhisay markaasi u jawaabiso oo aniga iyo farxaan yare waxba naga madhaxayeen sidoo kale postiga halkan idinka muuqda waxa soo dhigtay rasmi rays lafteedu oo kuwinteeda boqortayda ku soo qortay soo meedaa garan halka iyada ana waxa inooga cad markaasi rasmi rays iyadana inay dhexdooda aan waxba oolin soo meedaa fahmin oo in qorbaryahan baa aynu iska jafaynay soo meedaa fahmin marka the call something 10 saacadood iyo wax ka badan dad wada hadlayay marka adigu aqligaaga siliimka aqliga aad ka shaqaysiiso maxay laga wada hadlayay كل ما أرن يعني سلوح يومنا هذه اللي قالت إنه يلا ربنا بقف اللي سكسي عليه ساعات أتلست تري هاورس أم 6 ساعات ويوقع على نساء لكن 8 ساعات وأرن ميلس اللي جاي سو ميدا فمسا أنا عرفت ده إلى تاي حتى بقى تذكر أي واحد سويديني رسم ما دام أو نيروبي تكتي سببت أي أهل لويدي محيتاي سببت أور أنا أصحابتي تقالق محرم مركزي وحي كهل لي سوان فيليا رسم رئيس لفتد وحي كهل لي رشك بوي يعني ده يكون حبسة أو مركزي يكون كهل تجي أو مركزي يدو دليلتي وحين لهاد أفكي شليت ولا عن حاجة أمانة كي أمانة بريت ولا مركو يعني إفراء ما بسوي تيجي صورة ماذا تكون معايا كرو سببت أجوين الأوران كرامات وي وهذا لله هذا رسم الرئيس واتا حتى بقى إن ما حيت هايبين صورة كرنا على كا بوستيه بدن انستغرام ka soo dhigayso heesaha calaalka ay markaasi rabto lafteedu inay dadka la wadaagto kulli waxba jira wax weyn baa jira soo meedan fahmin insha Allah aduu ilaahay raasida ugu dhaqsiyaha badan waxaan doonayaa inaan markaasi xog rasmi ah idinka keeno wax walba sida yihiin iyo wax walba sida u socdaan waxaad wada ogsoonayeen hadii aynu qarniyo ka hor xasuusiyad dib idin celiyo in markii ay farxaan yar magaalada Hargeysa ka tagayay dalkaasi Kenya gaar ahaan Nairobi oo rasmi rays ay ku soo dhaweysay Jomo Kenyatta qaabka quruxda badan ay u soo dhaweysay hadaba waxa aan la ilaawi karin oo xusin mudan جعل اسكو ما يسن قرشين أنا وجعل أما اسكو قرصدا أما أنا عايز اسكو قرصدا كل قيس يلا ما نق الصوماليات وبد أنا جنوا أهيدين مرة والبنا وح مناسبة لما نياش الصوماليات واللي بإنتو السوشيال ميديا كل حشرتها إن هدي يعني أي إيه حتى هدي أي تنتهيها كاي شران صومال كرم وح الأورني على ما أنت تهال كنا على صوتشري Oh my God! وايو السوشيال ميديا مركورة أديك إسكاني السوشيال ميديا هنو حباهي مر كي هو روح dadka soo gudbin jirteen ee aad la wadaagi jirteen hadii ifan maanta anu shakhsigaygan aan halkan taaganahay aan wiliga yaalahay taagnaado saacun ahaado laga oran maayo ninkii wardi maanta waxbu bedelayo sirkii iyo designkii waxbu bedelay laakiin hadii aan inaan halkan soo saarjeen ilaado waxa jeedii waa dumaashidin aan ilaahdo aan barit waliyo saadaman ay muuqaale ila duubeed waxa oranaya tolo wardi xaajiyadii ma isku kacsan yihiin waa xeerka social media haba soo midaan karo waa sababta ugu weyn ee yani dadka youtuberska caanka waliba intooda aqliga u saaxiib أي حاسسكوجا سوشيال ميديا أوكي هدي عن مر يلا بقى حصو إنتو صالحان وكلا واحد قصو قادة أحمد كافي دير واويل كم إذا كحت اسمه دانتو وحقا بيكابر الصوماليات وهي ستح أبدا ويلجي يالله السوشيال ميديا مو لحكين حتى بوي كلا تجين لبدودو
gabadhii Axmed Kaafi iyo markaa xaaskiisu way kala tageen saddex ubadana way dhex yaaleen ma cid hadal haysan aragteen waa may mid ba aad aragtaan social media boonboonanaysa waa may marka hore social media ayuu ka dhaxsaay social media kaligiiba is dhex keenay markaas waxaan oranayaa dadka aqliga u saaxiibka ee feedback iyo waxyaalaha kaga soo noqon doona qoyskan ama lamaanahan yani xaaskiisana uu halkan keenay waxyaalo badan bay ku duugan tahay ifan hadii aad adigu rabto inaad xaaskaaga social media keento waxa iga talo iga tusaale inaad xaaskaaga social media keenintaas waa iga talo aan idin la wadaagay idinka ama inta iga dambaysa ama bas inta igu horeysay markaasi sidoo kale inta social media ku jirtay waqtigan xaadirka is dhex keentayna waxa leeyahay markaasi si wanaagsan u wada dhaqma ifan xitaa hadii aad yani colaadi dhexdiina taalo oo timaado taageerayaashiina ama finaska idinku xidhan hal la wadaagina waa iga tala iyo tusaale aan la wadaagayo dadka asxaabtayda ee markaasi aan bah wadaaganahay soo midaagan waayo beritoole waxay leeyahay oranayaa waa labadii qof YouTube-ka isku kala kacsanayeen laba qof oo adduunka isku jecel laba qof oo jacayl isku gursaday laba qof oo malab iyo isku aaban oran kara sonkor hayde ayaa la oranayaa YouTube isku kala kacsan jireen soo midaagan markaasi Soomaalidu waa sunto harkaabay ku maahmaada lagamana amaan helo anyway ma jecel muuqaalka inaan ku dheeraado waxaan rabaa inaan intaasi ku soo gabagabeeyo waxaan ka codsanayaa hadii aad ku cusubtay kanaalka inaad subscribe noo saarto muuqaalka aad noo like gareyso share gareyso la wadaagta asxaabtaada fikirkaaga iyo aragtidaada xaq hoose noogu reebto waa inayo muuqaalka ku xigno ku lan waxaan kaga tagayaa see you soon inshallah It's time to stop!